sanadkii 2001 waxa lagu xukumay gabadh xabsi shil ay gashay dartii. arrinkani waa arrin iska caadiya, laakiin macquul ma tahay in dambi shil ah uu sababo in qof loogu xukumo xabsi muddo 50 sano ah. waa qisada ay maanta ka hadli doono, waana qisada Chanti Marlad. waxaan ku soo koobaynaa qisadan 3 qaybood: shil, waali iyo doqoniimo. haddaan ku bilowno qaybta shilka, Marlad oo da'deedu ahayd 25 sano waxay ahayd mid ka tukaamaysanaysa suuqa markii ay soo dhamaysatay tukaamaysigeedii sikadiisa. waxay jiidhay oo duqaysay nin marayay waddada. intaasoo keliya kumay mutaysateen gabadhani in maxkamaddu ugu xukunto xabsi 50 sano ah. laakiin arrinta la yaab kale ee beddeshay marinka qisadan ayaa waxay tahay ninkan ay jiidhay gabadha oo lagu magacaabo Grigori Bigis waxa uu ka dhex galay gaadhiga muraayadii hore kadib markuu jiidhay gaadhigu, laakiin wuxuu ahaa mid nool, weliba uu u dhammaystiran yahay xiskiisu. halkii ay Marlad uga wadi lahayd ninkan si degdega cusbitaalka, waxay geysay oo u waday ninkii gurigeeda, waxayna dhex dhigtay gaadhigii geeriska guriga, waxayna kaga dhex tagtay ninkii isagoo weli ku xaniban muraayadda iyadoo aan u soo gudbin wax caawimaad haba yaraatee. haddaynu eegno qaybta waalida, Marlad waxay awoodi karaysay inay caawiso ninkan oo geyso cusbitaalka maxaa yeelay waxay ahayd gabadhani kalkaaliso, waxayna khibrad dheer u lahayd hawshan emergency-ga. laakiin cabsideedii badnayd ayaa ka dhigtay inay doorato xalkii xumaa, waxayna kaga tagtay ninkii halkii ilaa uu ka dhinto. habeenkii uu dhintay, Marlad waxay ahayd mid gelaysa oo ka baxaysa geerashka iyo guriga. manay u samaynin arrinkan inay caawiso ninka, laakiin waxay u samaynaysay inay ka cudur daarato. waan ku baryayaa isaamax. wuxuuna ugu jawaabayay Grigori, waan ku baryayaa Marwey caawi. waan ku baryayaa isaamax. waan ku baryayaa caawi. waxay ku celcelisay sidan 2 jeer, 3 jeer iyo 4 jeerba ilaa ugu dambeyntii uu u dhintay Grigori dhaawacyadii ku yaalay. subaxii maalintii labaad, gabadhii waxay soo qaaday meydkii ninka, waxayna ku tuurtay mid ka mid ah kaymaha, waxayna gubtay gaadhigeedii si ay u qariso dhammaan caddaymaha dilkan. cidna may ogaan inay dilkan yadu geysatay, wayna baabiisay dhammaan caddaymihii. haddaynu eegno meydkii Grigori, waa la aasay, wuxuuna noqday kiiskani mid la weysan yahay qofkii geystay dilkan. qaybta doqoniimada. doqoniimadu waxay tahay inaad adigu isku qirto dhammaan dembiyadii aad gashay oo dhan. taasna way ogeyd Marlad. markii ay mooday ama ay dhaaftay ciqaabtii gabadhan, waxay iska bilowday inay cabto khamri. maalin maalmaha ka mid iyadoo joogta xaflad, waxay cabtay khamri aad u badan, waxayna bilowday inay qirato dhammaan wixii dhacay, weliba iyadoo sharaxaysa oo qoslaysa. intaa kadib waxa maqlay mid ka mid ah ka soo qaybgalayaashii xafladda, wuxuuna la hadlay booliskii, wuxuuna u sheegay arrinkii. intaa kadib waxay yimid goobtii booliskii, waana la soo xidhay. markii la soo xidhay, waxay sheegtay Marlad inay Grigori u sheegtay dhowr jeer inay badbaadin doonto haddii uu cafiyo. kiiskan waxa baadhay dambi baadhayaal, waxaanu caddeeyey macluumaadka caafimaadku inay suurtagal ahayd in Grigori uu badbaado haddii Marlad ay soo gaadhsiin lahayd emergency-ga. manuu ahayn dhaawiciisu mid halisa, waxaana sababay dhimashadiisa dhiigbax. sidaa darteed waxay ku qanacday maxkamaddu in arrinkani uu yahay dembi dil ah, weliba uu la socday inay qarisay dhammaan caddaymihii, waxaana lagu xukumay xabsi muddo 50 sano ah. sanadkii 2007 wuxuu bedelay ninka filim sameeyaha ee lagu magacaabo Eastwood Gordon qisadan filimkaasoo uu gelayo atooraha lagu magacaabo Stephen Rea doorkii ama booskii ninkii uu jiray gaadhigu, halka aktarada lagu magacaabo Meena Safari ay gelayso booskii Marlad. waxaana filimka magac looga soo dhigay Stag oo macnaheedu yahay kii xanibnaa. wuxuuna u dhacayaa filimku sidan: nin marayay waddada ayaa wax duqaynaya gaadhi ay wadatay gabadh dhalinyaro ahayd oo si aad u soo cabtay khamri. ninkuna wuxuu ku dhex xanimayaa muraayadda hore ee gaadhiga, wuxuuna ku soo daray soo saaraha filimkan waxyaabo badan oo ay ka cabanayaan mujtamaca Maraykanku, oo ay ka mid tahay in la gubo baabuurta marka lagu soo galo dembi. fikirkaaga ka dhiibo, ma u malaynaysaa in Marlad ay tahay dembiile?